jimco wanaagsan kulanti waan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa 20ka bisha Maarso sanada 2020 arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxa kamid ah gobolka California ee ugu weyn wadanka Mareykanka oo xayiraad lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Argentina waxa uu noqday dalkii ugu horeeyay Latin America oo dadka dalkaas xayiraad ku soo rogay coronavirus awadi. Haddaba cudurkan muxuu ahaa? maaha cudur hawada la socda waa cudur maaragtay diifka iyo xaakada iyo wixii gacanta ee la socda inta badan aad buu u faafi og yahay qof walba oo maaragtay cudurkan la kulma wuu ku dhici karaa. 4 nin oo loo daldalay kufsi iyo dil 2012 ka dhacay wadanka Hindiya iyo qaar kamid ah Soomaalida ku nool gobolka Ontario ee wadanka Canada oo toddobaadyadii la soo dhaafay waday olole ay ku doonayaan in dawladda dalkaas ay ku aqoonsato toddobaadka xuska dhaqanka Soomaalida. Sababtu maxay tahay? taasna waxaanu doonaynaa carruurteena yaryar ee halkan ku korayna inay bartaan taariikhdooda iyo afkooda iyo hiddahooda. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geelle anigoo Cabdifatax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Bashiir Maxamed Cabdi Bashiir. mahadsanid Cagaar. مسؤولينta gobolka ugu weyn dalka Mareykanka ee California ayaa shacabka ku nool halkaas ku amray inay guryahooda ku nogaadaan ilaa iyo amar dambe si loo yareeyo faafidda xanuunka corona. Barasabka gobolkaasi California Gavin Newsom ayaa sheegay inuu qiyaasayo in kalbar dadka ku nool gobolkaasi uu ku dhici doono xanuunka marka la gaaro bisha May. Gobolkan ayaa waxa ku nool dad gaaraya 40 milyan oo qof. dalka Argentina ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika oo ku dhawaaqay in xayiraad la saaray guud ahaan wadankaasi taasi oo loo aaneynay dhibaatada xanuunka corona. Dhammaan shacabka wadankaasi ayaa lagu amray inay guryahooda ka soo bixin waxaana loo ogolaaday in ay banaanka u soo baxaan oo kaliya marka ay raashinka iyo dawoonka iibsanayaan. 112 kiis ayaa laga soo sheegay wadankaasi Argentina halka 3 qofna ay u dhinteen caabuqa corona. waxaana sidoo kale wadanka Brazil uu qaaday talaabo markaasi lagu xakameeyay xanuunkaasi oo waxa uu sheegay in xiray dhammaan xuduudaha la wadaago dalalka dariska. xanuunka corona ayaa dalka Talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay wadanka Shiinaha iyo guud ahaan caalamka kadib markii tirada dhimashada hal maalin oo kaliya ay gaartay 427 qof. tirada dhimashada ee wadankaasi Talyaaniga ayaa haatan gaartay 3405 qof taasi oo ka badan dadka xanuunkaasi ugu dhintay wadanka Shiinaha. Shiinaha ayaa waxa xanuunkaasi ugu dhintay dad gaaraya 3245 qof balse waxa su'aal gelinaya sax ahaanshaha tiradaasi maadaama aysan jirin ila lagu kalsoonaan karo oo si rasmi ah u xaqiijin karo tirada dhimashada. dhammaan shacabka ku nool wadanka Talyaaniga ayaa lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan inkastoo ay jiraan talaabooyinkaasi ay soo rogtay dawladda haddana waxa la soo sheegayaa in ay jiraan weli dad u dhimanay xanuunka. guud ahaan caalamka waxa la sheegay in 220 kun oo qof uu ku dhacay xanuunka halka 9 kun oo qofna ay u dhinteen. dalka Hindiina waxa la khaarijiyay 4 nin oo dil iyo kufsi kula kacay haween saarnaa bas marayay gudaha caasimadda dalka Hindiya ee Delhi sanadkii 2012. raggan ayaa la dilay saaka aroortii kadib markii gudoomiyaha maxkamadda sare ee wadankaasi Hindiya uu diiday racfaan ay qaateen. dhibaatooyinka iyo xadgudubka lagu kacay haweenkaasi ayaa dibadbaxyo carawata ka abuuray wadankaasi Hindiya sanadkii 2012. ugu dambeynna militariga wadanka Maalina waxay sheegeen in 9 askari lagu diray weerar kooxo jihadoon ay ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala deegaanka Tarakind. weerarkan ayaa waxa uu dambeeyay weerar isdaba joog ah oo kooxaha jihadoonka ka dagaalama gudaha wadankaasi ay ka geysanayeen gudaha wadanka Maali kuwaasi oo inta badan bartilmaameedsanaya saldhigyada ciidamada militariga. warkii caalamkana waa nageenta. aad baad u mahadsantahay Bashiir Maxamed Cabdi oo kaasi ah oo nala socodsiinayay wararka caalamka halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waa tahay aan ku bilownaa sidaad warkaba ku maqlayseen barasabka gobolka California ee wadanka Mareykanka ee gobolka ugu weyn wadankaasi ayaa waxa uu muwaadiniintiisa ku amray inay guryahooda joogaan si loo xadido caabuqa coronavirus. barasabka ayaa sheegay inuu filayo in ka badan kala bar dadka gobolkaas ku nool ay cudurkaasi qaadaan wixii loo gaaro bisha May. haddaba dhanka kale ee wadanka Argentina ayaa wuxuu noqday dalkii ugu horeeyay Latin America ee ku dhawaaqay in guud ahaan uu xadidayo dhaqdhaqaaqa dadkiisa cudurkaasi coronavirus awadi. faafahinta warkaas iyo wararka kale ee cudurkaasi ku saabsan waxa isku soo dooyay haatan studio uga soo biiray Xasan Cali Geelle. Xasan oo bal Mareykanka noogu bilow.
cabdi fataax barasabka gobolkaasi California waxa uu sheegay in dalka gobolkaasi gaar ahaan kalabar ay halis ugu jiraan in cudurkaasi ay qaadaan meesha lagu gaaro bisha May gobolkaasi waxa ku nool ilaa iyo 40 milyan marka kalabar waxay noqonaysaa ilaa iyo 20 milyan oo qof in muddadaas ku dhow labada bilood ama bil iyo xogaaga ah uu cudurkaasi ku soo rito waana halis aad u badan marka loo fiiriyo dad badan ayaa waxa ay leeyihiin in kastoo dawladdu ay sheegtay in ay kabayso dhaqaalaha dalkaasi in kastoo ay mataqaana ay tahay wadankii ay ka mid tahay wadamada ugu horumarsan caalamka haddana in cudurkani uu si hoose u faafayo oo xitaa mararka qaar ay dhici karto in dad aad u badan ay haatanba ay halis ugu jiraan cudurkaasi isla dalkaasi Mareykanka dawladdu waxa ay ka sheegtay ama ay ka digtay diyaaradaha caalamiga ee dalkaasi imaanaya waxa ayna muwaadiniinteeda ugu baaqday gaar ahaan kuwa dibadda jooga in si degdeg ah dalkooda ugu soo laabtaan haddii kale ay u diyaar garoobaan in muddo aad u dheer dalka laga xayiro oo aysan dib u soo galin madaxweyne Trumpna waxaa la filayaa inuu shaaciyo go'aan ku meel gaar ah oo lagu xirayo xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Mexico iyadoo marka laga soo tago waxyaabaha aan muhiimka ahayn laga bilaabo maanta oo Jimco ah arrintan waxaa loo gol leeyahay sidii lagu xakameyn lahaa faafitaanka cudurkaasi ee corona warbaahinta dalkaasi Mareykanka waxa ay sheegaysaa in dhammaan dadka magangelyo doonka isku daya in ay soo galaan dalkaasi Mareykanka kana yimaadaan dhanka Mexico lagu celin doono dalkaasi Mexico waxa jira talaabooyin taxadar ah oo la qaadayo oo ay ka mid tahay heshiiskii dhexmaray Mareykanka iyo Canada kaasi oo lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa xuduudda labadaasi wadan sida kalena dhanka kale ay raahday Argentina waxa uu noqday wadanka kaliya ee ku yaala ama wadankii ugu horeeyay ee ku yaala koonfurta qaaradda America oo shaaciyo in xayiraad lagu soo rogay dadkiisa sababo la xiriira cudurkaasi coronavirus madaxweynaha dalkaasi ayaa soo jeediyay digreeto ah in dhammaan muwaadiniinta dalkaasi ay guryahooda ku sugnaadaan aan ka ahayn inay doonayaan inay soo gataan cunno iyo daawo ilaa iyo haatan 111 qof ayaa la sheegay in ay cudurkaasi ku soo ritay iyadoo 3 qofna ay ku dhinteen waata marka laga soo tago Mareykanka iyo Argentina bal caalamka intiisa kale iyo Latin America iyo wararka coronavirus wararka kale ee coronavirus dalkaasi Brazil waxa uu xiray dhammaan xuduudaha dhulka ee uu leeyahay wadamada kale marka laga soo tago wadanka Uruguay Colombia sidoo kale waxa la mamnuucay diyaaradaha caalamiga ama duulimaadyada caalamiga ee dalkaasi soo galaya Peruna waxa ay sheegeen ama dawladdu sheegtay in ay bandow ku soo rogayso dalkaasi oo dhan Portugal waxa iyaduna sheegtay dawladdu inay qaadayso tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaasi waxaana la sheegay in lagu dhawaaqayo xaalad degdeg ah waxaa la leeyahay waxaa dambi ah in qof muwaadin ah oo qaba cudurkaasi coronavirus ama xitaa looga shakisan yahay uu xayiraad ama iskarantiili waayo dadka da'dooda ay ka weyn tahay 70 sano iyo dadka qaba xanuunada hore ee soo jireenka ahaa ayaa sidoo kale waxaa loo ogol yahay inay guryahooda ka baxaan oo kaliya haddii ay tahay arrintaasi mid muhiim ah tusaalahaan inay ama isbitaal aadayaan ama ay xaalad kala galayaan cunooyinkaasi ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay dadku waa inay sii kaydsadaan inkastoo aan loo ogolayn in qofku wax aad u badan uu hal mar iibsado marka sidoo kale dalka Jarmalka kolka Yurub fiirino dadku dawladdu waxay diyaarinaysaa in ciidamada militariga ah la howlgaliyo oo shacabka ay ku khasbaan in ay guryahooda ay ku ekaadaan oo aysan ka soo bixin tiro badan ayaa dalkaasi soo baxaysa oo ilaa iyo 14 gaaraya oo looga shakisan yahay cudurkaasi Talyaaniga isaga xaaladiisu way ka daran tahay oo wadamo badan oo caalamka ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dalkaasi ka jirta waxaana jirtayba in haata la leeyahay Shiinaha ayuu ka batay dadka u dhintay cudurkaasi waa aad baad u mahadsantahay Xasan Cali Geela ayuu kaasi oo faafaynta warkaasi ku saabsan coronavirus nala socodsiinaya haddaba xanuunkan coronavirus dunida oo dhan waa uu gilgilay oo jahawareer iyo walaac ayuu ku abuuray sida xawliga uu faafay awade dadku waxa ay aad isu weydiinayaan sida waa Soomaalida sida cudurkan uu bedeli karo dhaqanka Soomaalida kuwaas oo ka walbaharsan xanuunkan cusub Dr. Axmed Cali Xaashi wacaaf waa dalka Shiinaha ayuu wax ku soo bartay khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow waxaa keenta virus la yiraahdo coronavirus baa la keenta maaha cudur hawada la socda
waa cudur maaragtay diifka iyo xaakada iyo wixii gacanta ee la socda inta badanna aad buu u faafi og yahay waxaana aad iyo aad ugu fido qof walba oo maaragtay cudurkan la kulma wuu ku dhici karaa oo qof maaragtay gaar u ah ma jiro carruur iyo waayeelba cudurkan wuu ku dhacaa walow maaragtay haddana dadka waayeelka ee marka hore cudurrada qabay chronic diseaseka qabay sida sonkorta dhiigkarka maxaan ku rahdaa wadna xanuunka kansarka sanbabka laga hayay wadnaha laga hayay kuwaas ay u fudud yihiin inuu maaragtay si xun u qabto cudurku balse hadda waxaan maqlaynaa wadamada maraykanka iyo talyaaniga xitaa dhalinyaradii aad buu ugu dhacay oo hadda dadka ICU-da jiifa waxay u badan yihiin dad maaragtay da-dooda ka yartahay 65 marka maxaa keena marka in cudurka sidan degdeg ah isugu bedelo yani xagga faafitaankiisa ka hadlaynaa waxaa la isu khaasiyaa qof droplet macnaha diifkii xaakadii number one qofka inta badan incubation periodkooda waxaa weeye ama qofka aysan cudurka ka soo bixin ilaa 14 cisho minus qof aan waxba dhayn cudurka ka soo bixin oo qandho lahayn qufac lahayn diif lahayn xaaka lahayn ayaa waxaa waaye cudurkii faafinaya oo maaragtay cudurkii sida marka saad horey uga dhawaajisay talabixinta caafimaadka ama dhakhaatiirtun ay bixiyaan waxaa weeye in qofka afka uu xirto iyo sanka gacmaha la maydho oo nadaafadda lagu dadaalo marka intaas oo keliya xal ma u noqon kartaa cudurkan inuu qofka haleelo at least wax badan bay tari kartaa gacmaha inta badan waatan kuu sheegnay waa droplets macnaha qof maaragtay cudurkii qaba iyo gacantiisa kugu salaamay maxaan ku rahdaay miis uu maaragtay wax ku cunay ama kaga tegey ama kursi uu ku fariistay ama bas uu raacay meel uu qabsaday faraski 18 saacadood bay halkaas ka saarnaanaysaa meeshii baa taabatay marka cudurkii waad soo gudbisa marka faradhaqaas horta aad mar walba waa fiican yahay faradhaqato midan kale maaskigan la gashanayo maaski asaga wuxuu naga ilaalinaya keliya inaan anagu sankanaga iyo afkanaga aan taaban laakiin qofkii maaragtay hindasadiisa xaakadiisii qusiciisii weli maaska viruska meeshaas waa ku jiri karaa oo maaska wuxuu noqon karaa meel maaragtay virusku ka buuxo mar walbana waxaa haboon maaskaas in meel fiican maaragtay lagu habeeyo sidayn la socono duniyada haatan walbahaar aad u weyn ayay ka qabtaa oo cudurro badan oo waxaa jira oo ka halis badan oo aan laga bogsan oo kansarka uu ka mid ah horey dunida uga jiray marka walbahaarka intaa la eg dunida in cudurkan ka qaado maxaa keenay waxaa weeye walbahaarka fiditaankiisa aad u badan number 2 ma naqaano waxa nagu cusub weeye oo maaragtay inuu xilligu ku istaagahayo waxyaabaha joojinaya weli si fiican oo maanaan baran marka waana aad buuna u fidahayaa waxaa weeye waxa ugu daran ma naqaano macnaha meeshuu tegi doono halkuu ku dambayn doono si wax u layn doono cidduu u tegi doono ma naqaano oo wax nagu cusub saasaa marka ugu daran waana aad buuna u fidaa sida khubarada caafimaadku ay sheegayaan cudurkan waxaa lagu ogaadaa qofka uu soo ritay amaba laga helayo in 14 maalmood uu jirkiisa ku jiro marka ma jiraan qaab kale ama baaritaan ka fudud oo aan 14 cisho ahayn oo lagu ogaan karo ninkii WHO ga xukumay waxaan ka haynaa erey hala isku dayin inaad dab damiso adoo indhaha isku haysta guri dab inaad ka damiso marka cudurkan waxaa weeye baar buu yiri macnaha qof kasta oo maaragtay hadda kaba soo qaad meel buu ka dilaacay meeshii in maaragtay dadkii joogo qofkii nooga yimaada meesha ayada horta in la baaro kaba soo qaad waxaa weeye wuu sidaa laakiin kama soo bixin in la iska baaro markii la baaro oo qofkan waxa ma qabaan leenahay waa kusii dayn karnaa bulshadii laakiin annagoon ogaan qofkan inuu wax qabo waxay noqonaysaa sida la sheegaya karantiilka in lagu hayo 14 cisho marka ma jiraan wax marka dawo ilaa iyo hadda cid dawo soo saartay ama tijaabo wado ama wax cudurkan ama lagu daweyn karo ama looga hortagi karo hadda waxaan daawanayaa CNN oo maaragtay Donald Trump ayaa wuxuu yiri chloroquine ayaa daawo noqotay baalki inkastoo dhakhtar baa kasoo dabadbooday oo tiri warbaahisha hadda waxay ku jirtaa trial wax maaragtay daawo la isku hubo maaha marka hadda chloroquinetaas waa la sheegay waa la isku hayaa chloroquine iyo hydrochloroquine labadaas hadda waa la isku hayaa wax hadda laakiin ururka macnaha WHO iyo midan Mareykanka CDC Center of Disease Control iyo iban xataa Chinese-ka hadda wax rasmi ah oo dhaa okay chloroquine iyo hydrochloroquine baa cudurkan u fiican weli ma hayno waa tahay kaasi waxaa Dr. Axmed Cali Xaashi oo warramay waryahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow halkaad nagala socotaana waa BBC markana fursadan si qaar kamid dhageystayaasheena Facebook waraygood halka kaga soo dhiibtay Saxardiid Xaashi Ardaale wuxuu ka soo qoray magaalada Boorama wuxuu leeyahay xanuunkaasi coronavirus waxa uu noqday xanuunkii xayiraada iyo xanibaada waayo buu yiri dhinac kasta oo nolosha ayuu xayiray waxaana wacan in la sameeyo tallaabo kasta oo looga baaqsan karo caabuqaasi safmarka ah nimcaan jaamac maxamed oo burco ka soo qorayna waxa uu leeyahay gobolka California ee ugu weyn wadanka Mareykanka xayiraada lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunkaasi coronavirus runtii waa mid aan waxba soo kordhinayn waa uu sababeynaa wuxuu leeyahay waayo xayiraada lagu soo rogay gobolkaasi California ma ahan mid lagu xakameyn karo faafidda cudurka coronavirus ee safmarka ah wararka ku saabsan coronavirus waan u soo laaban doonaa halka nagala socotaan waa BBC
waa tahay markana dhalinyaro dagaalyahano islaami ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen xero military oo ku taal waqooyiga wadanka Mali waxayna halkaasi ku dileen 29 askari 5 kalena ay ku dhaawaceen haddaba weerarkaasi waxa uu ahaa midkii ugu dambeeyay weeraro xooggan oo maleeshiyaadka la xiriiriyay ururweynaha al-Qaacida iyo ururka la baxay dowladda islaamiga ay ku hayaan militariga dalkaas maleeshiyaadkaas oo ku xooggan dalka Mali ayaa waxa ay xasilooni darro ku abuureen guud ahaan gobolka Saaxil gaar ahaan dalalka Niger iyo Burkina Faso faafaynta warkanna waxaa inoo hayaa Bashiir Maxamed Caad Bashiir adsaxawsa sheegtay salagaas military wax lagu qaad weerarkaas military ayaa wax lagu qaaday salagii leeyahay ciidamada militariga wadanka Mali war qoraal oo ka soo baxay militariga wadankaas ayaa wax lagu sheegay in askar ka tirsan ciidamada wadanka Mali lagu dilay deegaanka la yiraahdo Tarkiinta oo ku yaala waqooyiga gobolka Gao militariga hore waxa uu sheegay in 2 askari oo kale ay kaga dhinteen weerarkaasi balse markii dambe ayaa waxa ay sheegeen in 9 askari ay ku dhinteen weerarkaasi ku xaaja adoonka ku qaadeen salagaasi military bishii Janaayo sanadkan ay ahayd markii weerarkaasi lamida ay kooxaasi ku qaadeen salagay leeyahay ciidamada wadankaasi Mali halkaas ay ku dileen 20 kamid ah militariga wadankaasi marka weeraradan waxa muuqata Cabdifataxu in muddooyinkii dambe ay soo tareeyeen dhibaato baan lagu geystay militariga wadankaasi gaar ahaan kuwa jooga deegaanada fogfog ee waqooyiga oo salagida military halkaasi ku leh marka waxa muuqata in wali gudaha wadankaasi carab bahsan ay ka dhalatay oo ku aadan in dawladdu aanay wax ka qaban weerarada baan ay kooxaasi ku qaadayaan salagida militariga waa tahay Bashiir Maxamed Caad ayuu mahadsan yahay warbixintaas ayuu nala socodsiinayay markana qaar kamid ah Soomaalida ku nool gobolka Ontario wadanka Canada ayaa todobaadii la soo dhaafay waxa ay wadeen olole ay ku doonayaan inay dawladda dalkaas ku qanciyaan oo ay ku aqoonsato toddobaadka xuska dhaqanka Soomaalida arintaas ayaa waxa horkacayay xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Ontario kana socda xisbiga mucaaradka NDP kaas oo baarlamaanka gobolkaas hordhigay qodob sharciyeed dhigaya in la aqoonsado toddobaadka Soomaalida ujeedkana wuxuu xildhibaan ku sheegay in carruurta yaryar ee Soomaalida ay halkaasi ku dhalatay iyo kuwa ku korayba ay bartaan taariikhdooda afkooda iyo hidahoodaba haddaba xildhibaan Faysal waxa uu warramay wariye Duraan Xasan Yare waxa aan hordhigay wiigii hore ee baarlamaanka gobolka Ontario biil ku saabsan Somali Heritage Week kaasoo aan doonayno inaanu ku dhawaaqno loona aqoonsado gobolkan wiiga marka la gaaro toddobaadkii dhaqanka Soomaalida loogu dabaaldegayay gobolka Ontario kaasoo ka bilaabmi doona June 25keeda ilaa iyo July 1keeda la socotidna wiigaasi waa wiig muhiim weyn u leh dadyowga Soomaalida ee ka kala yimid geeska Afrika taasna waxaanu doonaynaa carruurteena yaryar ee halkan ku korayna inay bartaan taariikhdooda iyo afkooda iyo hidahooda Soomaalidu muddo badan ayay wadankan joogtaa maxaa xilligan ku soo aadiyay inaad u ololeysaan hirgelinta sharcigan maxaa idinka hortaagnaa inaad horay ugu ololeysaan markii ugu horeysay oo xisbiga anigu aan ka tirsanahay xisbiga horsocodka ay arrintan soo gaadhay in ay ka hadlaan baarlamaanka maxaa yeelay xisbiyadii kale ee gobolka matalaya oo dhan wax qiimo ah oo ay siinayeen ma aysan jirin maadaama aan aniguna ahay Soomaaligii ugu horeeyay ee gobolkan laga doorto taasina waxay keentay dardar hor leh oo runtii muhiimadda ah in ma garanayso ay la aqoonsado qowmiyadda Soomaalida tirada badan leh ee haddana gobolkan runtii shaqooyin aad u fara badan gobolkan kusoo kordhiyay waxa weeye waxa kaliftay hadda inay timaado waxaa yimid qof ehel u ah taas ayaa kaliftay markaa doorashadeedii inay keentay in dardar xoog la geliyo waa tahay rajaynta leeg ayaad ka qabtaa in baarlamaanku ay meel mariyaan sharcigan aad soo hordhigtay waxaan rajaynaynaa in aanu runtii aanu ku qancino dhammaan xildhibaanada xisbigayga oo dhan way taageersan yihiin xildhibaanada dowladda la socotida baarlamaankan 2 xisbi oo waaweyn baa ka jira inta kalena waa xildhibaano madax bannaan marka dabcan waxaanu doonaynaa in dhammaan qowmiyadda Soomaaliyeed iyo dadka ehelka u ah arrintan inay dhammaantood ay qayb laxaad ka qaataan sidii loo fulin lahaa oo ay xildhibaanada xaafadahooda shirar gaaran la galaan la kulmaan u sharaxaan inay taageeraan annaguna waan doonaynaa inaanu hanano sidii ay maaragtay u taageeri lahayn maxaa yeelay in loo dabaaldego Somali Heritage Week waa wax faa'iido u leh gobolkan marka qof kasta oo maskax saliima leh waxaan filayaa inuu nagu garab istaagi doono sidaa daraaddeedna aanu ku fulin doono toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee gobolka Ontario ugu dambeyntii sharcigan ma waxaad rabtaan in laga hirgeliyo gobolka Ontario oo kale mise guud ahaan Canada maadaama oo Soomaalidu gobolada Canada oo dhan ay degan tahay
anigu waxaan ahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario meesha kaliya aan awoodda sharciga aan fulinteeda aan ku leeyahayna aan xubin aan ka ahayna waa baarlamaanka Ontario halkaas ayaa markaa anigu aan doonayaa inaan ka fuliyo dabcan xildhibaanada wakiilada ka ah baarlamaanka federaalka ah waa lala hadli karaa. waa tahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario waddanka Canada wuxuu warramay Duraan Xasan Yare. waa tahay ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse sida aad warkaba ku maqlayseen waxaa waddanka Hindiya daldalaad lagu dilay 4 nin oo loo haystay kufsiga iyo dilka gabar 23 jir ahayd oo lagu dhex dilay laguna dhex kufsaday bas marayay gudaha magaalada Delhi 2012 raggaasi ayaa waxaa daldalaad lagu dilay maanta oo Jimcaha kadib markii lagu waayeen racfaankii ay ka qaateen xukunkaasi hore loogu riday. haddaba faafahinta warkaasi waxaa soo akhriyay oo markale stuudiga la soo laabtay xasan cali geel xasan oo bal faafahinta warkaas. cabdi fataax 40 nin ayaa loo haystay dilka gabadhaasi 23 jirka sanadkii 2012 inta la kufsaday bas lagu dhex dilay magaaladaasi Delhi waxaana xalay ama markii dalkaasi India ay ahayd aroortii hore ee saaka waayo xil hore ay dhowr saacad ay naga horeeyaan ayaa maxkamadaasi xukunkaasi ay fulisay waxaana lagu dilay xabsi weyn oo ku yaala halkaasi lagu magacaabo Tihar waxaa jirtay marka raggani in 2013 markii la soo qabanay 2012 ay ahaayeen 6 nin mid kamid ah sanadkii 2015 ayaa meedkiisa laga helay xabsigii uu ku xirnaa midka kale waxaa la sii daayay kadib markii uu 3 sana xabsiga ku jiray waxa uu ahaa nin 17 jir ah sida awgeed sharciga dalkaasi India waxa uu ka yahay nin aan qaangaar ahayn marka qofka aan qaangaar ka ahayn 3 sano ka badan xabsiga kuma jiri kara. 4 kila soo hertay xalay ayaa daldalaad lagu dilay waxa jirtay in dad badan ay aad u soo dhaweeyeen oo isugu soo baxeen banaanka hore ee xabsiga markii ay maqleen ninkaasi raggaasi la daldalaya. waalidiinta hooyadii aabihii dhalay gabadhaasi oo la hadlay BBC-dana waxa ay sheegeen inay aad ugu farxeen inay arkaan in la dilay ama gabadhoodii ay heleen ay heshay cadaalad heshay. hooyadu wali waxa ay tiri sawirkii gabadheeda ayaan habsiiyay oo waxaan u sheegay in ugu dambeyntii cadaalad ay gabadhaasi heshay. Brazil la soo dhaafay ayaa 40 nin waxa ay dalbadeen in racfaan ay ka qaataan balse waa laga diiday arrintaasi maxkamadda sare ayaa diiday kadibna waxay dabceen in dilkaasi la joojiyo mana suurtagelin. waa tahay aad mahadsantahay xasan cali geela ayuu kaasi faafahintaasi dheerna waxaad ka eegi kartaan barteena internetka ee bbcsomali.com markanse aan dib ugu laabano wararka cudurka coronavirus ee safmarka ee dunida dhibaatada weyn ku haya haddaba kaas waxa uu dhaqaalihii dunida qalqalgeliyay cudurkaasi si ballaaran weliba hase yeeshee qaar ka mid ah warshadaha ayuu cudurkan fursad u abuuray oo farmashiyaasha koonfur Afrika iyo waliba shirkadaha nadaafadda ayaa waxa ay dhaqaale ka sameeyaan baahida degdega ee loo qabo walxaha nadaafadda loo isticmaalo. wariyaha BBC-da ee koonfur Afrika Fumani Mekhize ayaa faafahinta warkan inoo soo diray waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cadow Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo soo jeedinaya. wajiyadooda waxaa qariyey maaskarka ay xidheen gacmahoodana waxaa deday galoofyada ay gashteen. waa koox nadiifiyayaal ah oo qabanaya shaqadoodii maalinlaha ahayd ee ku saabsanayd la tacaalidda jeermiska maadaama fayraskan dilaaga ee coronavirus uu ku sii kordhayo South Africa. shirkaduhu waxay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku ilaalinayaan si goobtooda shaqo aysan xarun ugu noqon fayraskan. xafiiskan ku yaala Johannesburg ee aan ku suganahay waxaa yaala jeermis dile waxaana ka soo uraysa aalkooshii lagu nadiifiyey goobta tan iyo markii uu faafay fayraska corona. shirkadaha iyo dadka caadiga ee South Africaanka ahiba waxay bilaabeen hab nadaafadeed oo qoto dheer. dadku waxay go'aansadeen inay xafiisyadooda iyo guryahooda ka dhigaan kuwa ka xor ah fayraskan dunida halakay. iyadoo inta badan warshadaha adduunka ay ku adag tahay la tacaalidda fayraskani haddana shirkadaha iyo goobaha shaqada ayaa u muuqda kuwo aan dadaal ku yarayn. waxaa jira dad aad iyo aad u badan oo na soo wacaya rabana in hawsha loo qabto waxayna doonayaan inaan u tagno oo aan guryaha nadiif uga dhigno. shaqadoo dhan waxay ku xiran tahay in aan meesha tagno laakiin in dadkoo dhan la wada qanciyo ayuu culays ka jiraa balse waan wadnaa shaqada waxaana macaamiisha ka caawinaa wixii karaankeenna ah. Eric Mare waxa uu maamulaa shirkad ka shaqaysa nadaafadda qalabka guryaha iyo kuwa shirkadahaba.
ganacsi ahaan waan ka faa'iidaysanaynaa waana qabanaynaa howlaha loo baahan yahay oo idil meelaha albaabada loo maro guriga dhexdiisa albaabada meelaha la qabsado meelaha nalalka laga daaro dhammaan waxyaabahaasoo dhan waan nadiifinaynaa markaas haddii aad taabatid waa meel nadiif ah waxaan sidoo kale qalabka gacmaha lagu nadiifiyo ku dhejinaa meesha albaabka agtiisa ah si marka aad albaabka sii gelayso aad u isticmaasho gacmahana ugu nadiifsato adigoo gudaha sii gelaya farmasiyaashu waxay sidoo kale la tacaalayaan kor u kaca saxmadda dadeed ee ka taagan goobahooda macaamiisha badankooduna waxay raadsanayaan hal shay waa jeermis dilaha gacmaha la marsado si loogu nadiifiyo liseed kuruga waxay haysataa farmasi waxayna noo sheegtay in dalabku aad u sarreeyo oo ay iibinayaan daawo 6 bilood oo kayda u ahaan lahayd maalmo yar gudahood taasoo abuuraysa in la galo xaalad suquuqul ah waxaanu ku nidhi qaata hal mid oo dariskiinna u reeba midda kale nasiib darro wixii oo dhan bay wada qaateen mar walbo aanu soo dhigno daawada gacmaha lagu nadiifiyo waa la dhammaystaa islamarkiiba waxaanu ku dadaalaynaa sidii qof walba oo reer koonfur afrika uu u heli lahaa waxyaabaha gacmaha lagu nadiifiyo haddana waxaanu dhignay khaanad laga dalbado daawada si aynu u maarayno oo ay dadku ugu qasbanaadaan in ay marka horeba ina soo weydiistaan inkasta oo xilliyadu u fiicnaan karaan warshadaha qaarkood sawirka guud ee dhaqaaluhu wuu liitaa tan iyo markii fayraskani dilaacay lacagta koonfur afrika ee raan waxay qiimo dhacday in ka badan 20% oo warshado badan ayay ku adkaan doontaa inay ka shaqeeyaan deegaankan adag ee dhaqaale iyadoo ah qayb ka mid a gargaarka dawladdu waxay qorsheynaysaa inay isticmaasho sanduuqa caymiska shaqala'aanta oo ay ka saarto lacag gaadhaysa 10 bilyan si ay ugu deeqdo isla mar ahaantaana u caawiso shirkadaha masiibada inay ku habsatay isaaq matego waa dhaqaalayahan wuxuuna noo sheegayaa inuusan rajo wanaagsan ka qabin mustaqbalka dhaqaale ee dalka xogtu waxa ay soo jeedinaysaa in hoosu dhac dhaqaale lagu jirayo sanadkan iyadoo cadaadis dheeri ah uu ka imaanayo adduunyada kale iyo xanibaadaha la saaray dhaqaalaha koonfur afrika si loo hakiyo faafitaanka fayraska corona tani runtii waa mid wiiqi doonta dhaqaalaheenna jahawareerka dhaqandhaqaale ee ka hadhaya fayraskan covid-19 waxay qaadan doontaa sannado in laga soo kabtay hadda south africa sida dalal badan oo adduunka waxay isku dayeysaa inay xakamayso dhibaatooyinka caafimaad ee dhanka bulshada iyadoo weli la hubinayo in dhaqaaluhu uusan hakadgelin cabdiraxmaan cali dhimbilaaday uu mahadsan yahay cudurkaasi coronavirus haddaba dhaqaalihii iyo dhibaatooyin kale uu geystay intaa kuma ekee ciyaarihii ayuu saameeyey oo xiriir kubadda cagta ingiriiska ayaa waxa uu dib u dhigay dhammaan ciyaaraha kubadda cagta ee dalkaas laga dheelo ilaa iyo 30 bisha abril ee soo aadan sababaha cudurkaasi oo faafaya awadi dhammaan ciyaarihii kubadda cagta ee horyaalka ingiriiska kan EFL-ka loo yaqaan ama loo yaqaan Carabao Cup kan haweenkii dhilan ee Super League iyo Championship-ka iyo dhammaan ciyaarihii Scotland, Wales, Northern Ireland ayaa dhammaantood dib loo dhigay waxaana xiriirkaasi uu sheegay in ciyaarahaasi la sii dheeran doono waqtiga ilaa waqti aanan la garanayn laakiin la dhammaystiri doono xilli ciyaareedkan intaa ayaan waqti u helnay waxaynu balan hadduu beedmo 2 duhurnimo inta ka horeysa